salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey geyiga Soomaaliya qodobada degdega ah oo aan caawa idiin hayo waxaa qayb ka noqon doona ciidanka beesha Ciise ayaa goordhow weerar waxay ku qaadeen goob uu shir uga socday odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha Samaroon weerarku waxa uu ka dhacay koonfurta tuulada Heemaal wararku waxay sheegayaan in gacanta lagu dhigay ku dhawaad 4 oday dhaqameed oo lagu eedeynayay inay abaabulayeen qorshayaal iyo weerar ka dhanna beesha Facaweyn ee Ciise waxaan ku soo gudbin doonaa halka uu weerarku sida gaarka uga dhacay iyo faahfaahinta guud ee amurta ku saabsan sidoo kale qodobada kale aan ku soo gudbin doono hadii Allah awoodda uu saamaxana waxa qayb ka noqon doona Somaliland oo ka yaabtay hub ka tira beelka ah ee gacanta u galay beesha Ciise wasiirka arrimaha gudaha Somaliland wuxuu yiri weligay ma aanan arkin beel ka hub badan beesha la yiraahdo Ciise iyana faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa dagaal caawa laga cabsi qaba inuu ka dhaco waqooyiga iyo koonfurta magaalada Cirigaabo ciidanka waqooyi bari oo halkaasi buux dhaafiyay qodobadaas iyo waxyaabihii kale aan ugu soo kordha ayaan saaxiibyaaladiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday taa markii kugu horeysay ku soo biri Daraja Media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga kaga dhiibo muuqaalka daawanaysa like saar habeen wanaagsan dhamaantiin soo dhawaada saaxiibayaal aan idin wadaago war degdeg ah oo faahfaahintiisa wata bilow ilaa dhamaad waxaan ku faahfaahinayaa weerar qorsheysan oo goordhow ka dhacay koonfurta tuulada Heemaal ciidamada sida gaarka u tababaran ee beesha Ciise ayaa goordhow laba jiho waxay ka weerareen goob shir uga socday odayaal dhaqameed la sheegay inay yihiin beesha Samaroon odayaashu faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya waxay ahaayeen sidoo kale weerarka isna waxa ka soo baxaya laba macluumaad oo iskhilaafsan cida weerarka fulisay iyana faahfaahin ayaa kaaga haya odayaasha gacanta lagu dhigay iyana macluumaad baan kaaga haya beesha Ciise oo talaabooyin kala qaaday iyana xog dhameystiran baan kaaga haya ee soo dhawow waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa meesha uu weerarku ka dhacay waxa la yiraahdaa ama waxay u dhowdahay tuulada Heemaal xogaha iyo wararka aan helayna waxay tilmaamayaan in maleeshiyad hubeysan oo ah kuwa beesha Ciise oo wata laba gaari oo ah Cabdibille asgar hubeysanna ay saaran yihiin ay weerareen tuulo koonfur kaga beegan tuulada Heemaal halkaas waxa la sheegay labadii bari ee la soo dhaafay inay ku sugnaayeen odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha Samaroon odayaashu halka waxay ka hayeen ayaa waxay ahayd inay u joogeen halkaasi waxa ay ku tilmaameen nabadeyn warar kale oo soo baxayana waxay tilmaamayaan in odayaashan Somaliland ay soo dirtay oo ay rabeen inay halkaasi basaasnimo iyo qashqashaad ay ka bilaabaan ciidanka beesha Ciise oo ka war helay odayaashan ayaa la sheegay inay toos u beegsadeen goobtii ay ku sugnaayeen laba jiho oo waqooyiga iyo koonfurta ayaana laga soo weeraray waxay odayaashu isku dayeen inay goobta ka baxsadaan 7 oday bay ahaayeen 5 kamid ayaa gacanta lagu dhigay labana goobta ayay iskaga baxsadeen sida ay wararku tilmaamayaan 5 oday ee gacanta lagu dhigay dhammaan waxay ka soo jeedaan beesha taagta daran ee la yiraahdo Samaroon kuwaas oo har iyo habeen ku taamaya inay qabsadaan dhul aysan lahayn oo ku yaala gobolka Awdal muuqaalaan goordhow hela ayaa waxay muujinayaan laba gaari oo ah kuwa Cabdibille la yiraahdo oo koonfur iyo waqooyi kaga yimid tuulada Heemaal deegaanka u dhow kadibna gaariga koonfurta ka yimid ayaa toos u soo galay magaalada markii odayaashu heleen xogta waxay damceen inay ku baxsadaan gaari Leyla Calaawi ah ama Saarif ah markii ay jihada waqooyi u baxsadeen gaarigii kale Cabdibille ah ayaa dhinaca kale ka soo maray kadibna odayaasha ayaa gaariga lagu qabtay labadii kalena waxa la sheegay inay si farsameysan magaalada uga baxeen inkastoo hadda lagu raajoogo sirdoonka beesha Ciise hadda wuxuu noqday mid tayadiisu ay aad u sareyso labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaan 2 warbixin ilaa 3 warbixin oo kala duwan waxaan idin kula wadaagay in gacanta lagu dhigay odayaal dhaqameed in gacanta lagu dhigay dhalinyaro in gacanta lagu dhigay gaadiid in gacanta lagu dhigay rasaas in gacanta lagu dhigay jaajuusin caawa ugu dambeysana gacanta waxa lagu dhigay rag lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen ficilo foolfool xun oo lala damacsanaa shacabka iyo beelweynta sharafta leh ee Ciise xogahan helayo waxay sidoo kale tilmaamayaan in weerarkan uu ahaa mid istiraatiijisan u dhacay sidoo weerarku ku bilowday iyo sidoo ku dhamaaday ayaa waxay ahayd qaab inaba aan caadi ahayn qaab qorsheysan iyo qaab tactic iyo farsamo ay la socoto
odayaashii la qabtay ayaa hadda waxaa la soo werinayaa in loo sii wado dhinacaasi magaalada Diridhabe iyadoo gaadiidka labada cabdibila ahna ay ka tallaabeen xuduudda gobolka Awdal Diridhabana ay tagi doonaan caawa saq dhexe halkaasna odayaasha lagula xisaabtami doono waxna laga weydiin doono sida ay ugu suurta gashay in ay basaasnimo ku dhaqaaqaan iyagoo odayaasha lagu eedeeyay inaysan baraali ka ahayn ficiladii folfoosha xumaa oo ay dadka rayidka ah kula kaceen yacni in beesha ciise qorshayaashooda iyo taatikooyinkooda iyagoo nabadoonna iska dhigaya ay xerooyinka tagaan goobaha muhiimka odayaasha ciisuhu ay ku shiraan ay tagaan goobo kale ay tagaan kadibna ay basaasaan ayay dabcan rabeen odayaashu laakiin idinka alle qorshayaashoodii waa laga hortegay waana la fashiliyey gacanta ayaana lagu dhigay odayaashii Diridhabe ayaana loo sii wadaa maxkamad ayaana la horgeyn doonaa ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim Xurmadle ayaa la soo werinayaa inuu laftarkiisu sameynayo dadaalo ka duwan kuwii hore loogu yaqaanay ugaaska oo ah cid walba oo nabadeyn rabta ama rabta inay ciisaha iyo samaroonka kala dhex gasho haddii warkaasi uu run ka yahay waa inay toos u yimaadaan Diridhabe iyagoo aan telefoon iyo wax kala toona wadan oo ay ishor fariistaan ugaas Mustafa iyo odayaasha wakiilada ah taas ayaa waxaa la dhihi karaa waa midda ugu habboon uguna fiican oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan haddii aysan taasi dhicin waxa ay wadaan odayaashu waa basaasnimo iyo xog inay gudbiyaan lagana yeeli maayo dabcan warkaasaa dhowaan la isku afgartay sheekada cajiibka ah ay soo jeedatay ayaa darba inaan idin sheego marka anoonan u xaglinayn samaroon ciisana u xaglinayn nimankan la yiraahdo ciisuhu hadda siday wax ku wadaan waa si istiraatiijiyadeed oo inaba aan caadi ahayn markaad eegtid qaabkay wax u wadaan siday wax u beegsanayaan sida ay wax u abaabulayaan qorshayaashoodu siduu yahay waa qorshayaal cajiib ah oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu ahaa qorshe lala soo daahay oo ku saabsan in ciisuhu ay tallaabooyinkaas oo kala qaadaan waayahay saaxiibayaal wixii ku soo kordha waynu arki doonaa haddii Allah awoodda loo raali ka noqdo markanna Somaliland ayaa la soo warinayaa inay la yaab iyo amaka ku noqotay tirada hubka ay soo gateen iyo kuway heleen beesha ciise taliyaha militariga Somaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo labadoodu warbaahinta si hoose uga hadlay magaalada Boorama ayaa waxay yiraahdeen wallahi waanu la yaabnay oo cajiib iyo amakaag ayay nagu noqotay sida ay beesha ciise isku hubaysay kooda ugu weyn iyo kooda ugu yar waxaa ka go'an mabda ah inay dagaalamaan oo ay weliba cagta u saaraan cid walbo oo ay isleeyihiin caqabad bay ku yihiin nabadiina iyo xasiloonidiina xubnaha la hadlay qaarkood waxay leeyihiin ugaaska guud ee beesha ciise wuxuu isticmaalayaa taatika inaba aan caadi ahayn oo ah in la weeraro saldhigyada iyo goobaha ciidanka militariga Somaliland iyo kuwa samaroonka iyadoo taa bedelkeeda aan la beegsanayn dadka rayidka ah waana qorshe cajiib ah oo inaba aan caadi ahayn sida xugu tilmaamayaan saraakiishan la hadlay qaarkood waxay leeyihiin tani waa farsamadii ugu dambeysay oo ay doonayso beesha faca weyn ee ciisuhu inay kula macaamilaan Somaliland wasiirka arrimaha gudaha Somaliland wuxuu sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan cid walba oo lagu helo in ay qashqashaadayso nabadda iyo xasiloonida taa bedelkeedana wuxuu sheegay in wada dhalashada iyo walaaltinimada la ilaaliyo wuxuu sidoo kale ku goodiyay inay tallaabo ka qaadi doonaan beesha ciise laakiin markii dambe dib ayuu u gurtay wuxuu arkay wuxuusan filayn oo ah in dhinac walba beesha ciise xilligan ay ka abaabulan tahay oo ay ka qorsheysan tahay oo ay rabto inay dagaal dhinac walba ah inay hadda qaado sida ay xogaha iyo wararku tilmaamayaan si walba ha ahaatee khubarada arrimaha la socota ayaa aaminsan in beesha faca weyn ee ciise ay weli wax badan xeerinayso qodobkeena ugu dambeeyana dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah ayaa caawa laga dareemayaa magaalada la yiraahdo Cirigaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag ahna xarunta gobolka ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa la soo warinayaa inay doonayaan inay dhowr goobood ka weeraraan fariisimaha ay kaga sugan yihiin ciidanka Puntland iyo kuwa Warsangeliga dhaqdhaqaaquna wuxuu noqday mid sareeya iyadoo xogaha iyo macluumaadkan heleen ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay dagaalo foolka halkaasi ka dhacaan
xubnaha la hadalnay qaarkood waxay leeyihiin waxaa suurtagal ah in ay dhacaan isku horimaadyo waaweyn oo sababi kara dhimasho iyo dhaawac taasi oo aysan cidna dan ugu jirin ayaa la leeyahay milatariga maamulka waqooyi bari heegankii ugu sarreeyay ayuu dabcan xilligan ku jiraa waxay ku soo kordha saaxiibayaal waa inoo wararkeena dambe haddii tahay markii kuugu horreysay ku soo biri daraja miidiya waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkaan aan ku daawacno soo dhowow daawade